dugsiyada Daarul Culuum Primary School. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوائر دكسي دار العلوم برايمري سكول وأنا جوا معلماتي الصومالية مع الهبة عبد الله محمد ما أنت فصل كاين 10 كيس اللي جنطونا وحويان فصل كأفراد دكسي وحين بلعبنا عطب كصدحات وحال هذا مجي عيسى هي صها وبابين توح برشة هي علنكا عطب كلمة وحكوا سبسين هي صها lagu guwaabinayo ardayga tiyo lagu guwaabinayo casharka uu dhiganayo iyo heesaha calankeena inta aynaan heestan aynaan bilaabin laba qodob baan ka doonayaa qodobka koowaad wuxuu noqonayaa dhageyso marka uu baruhu akhrinayo heesta baruhu waa aniga waxaad dhageysanaysaa markan heesta aan akhrinayo qodobka labaad in ka doonayaa waxa weeyaan sadar iiga daba akhri markastoon akhriyaba sadar ama line ayaad iga daba akhrin doontaa insha Allah heestan aan dhigano waxa la radaa heesta dugsiga marka waa bara heesta dugsiga dadka oo ooman oo wax aqoon aqligu ku adeegta adduun alif buu ka abaare ogow ka adkoow dugsigaaga ka adkoow darsigaaga ka adkoow waan ku soo celinayaa dadka oo ooman wax aqoon aqligu ku adeegta adduun alif buu ka abaare ogow ka adkoow dugsigaaga ka adkoow darsigaaga ka adkoow hadaa luuqeedin ku daro waxay noqonaysaa dadka oo oomano wax aqoon aqligu ku adeegta adduun alif buu ka abaare ogow ka adkoow dugsigaaga ka adkoow darsigaaga ka adkoow waxaan u soo gudbaynaa haddana qaybta labaad waqtigu waa hilaac ordaye aad u dheeho intaad yartaho waqtigu waa hilaac ordaye aad u dheeho intaad yartaho ereygaad barateed akhridaa anfacaya naftaadii ogow ka adkoow dugsigaaga ka adkoow darsigaaga ka adkoow haddaynu ku luuqayno qaybta kale waxay u dhacaysaa sidan waqtigu waa hilaac ordaye hoy intaad yarta waqtigu waa hilaac ordaye aad u dheeho intaad yartaho ereygaad barateed akhridaa anfacaya naftaada ogow ka adkoow dugsigaaga ka adkoow darsigaaga ka adkoow intaasay maanta nagu dhamaatay heesta aynu qaadanaynay koobaad su'aashan baan idin weydiinayaa arday laylis su'aashan waxa weeyaan maxaa ay heestani ku saabsan tahay mawduuca ay heestani ku saabsan tahay waa maxay haddaad mawduuca ay ku saabsan tahay aad fahantid su'aasha ku hoos jirta iyada waa laba su'aalood oo saaran wax ka qor heestan maxay ku saabsan tahay waxa ay ku saabsan tahay aad fahantay kadib wax ka qor casharkeen maanta intaas uu inoogu eegyahay waxaan idinkaga tagayaa insha Allah inagoo nabada ilaahay isku keen soo celiyo waxaan sidoo kale aan jecelahay mar walba inaan xasuusiyo fariinta caafimaad ee ah farahaaga aad mar walba u faraxal guriga joog ha tagin meelaha maxay ahaday buuqa iyo saxmada ah tuko oo shanta salaadood ee faralkaaga oo insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته